waxay joogtaa xilligii ugu xasaasanayd oo la qaban oo dalkiiba dagaal la geliyo leey xaalad dagaal baa ku jira waxa igala hadlin hadii taasi suuroobi weydo Soomaaliland way bariiqanaysaa macawisleyda duru wuxuu ma noqonaysaa beelaha xuduudaha degan kuwa kalena dagaal ka furmaya macawisleyda galbeedna waa ka furmay gudoomiyaha hore ee xisbiga wadani ee laanta Jarmalka Mudane Cabdisalaam Sheekh Maxamed oo la hadlay warbaahinta magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in uu wadanku galay xaalad siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo cakiran sidoo kale Cabdisalaam waxa uu ka hadlay xaraashka iyo xoolo urursiga xukuumadda waxaanu sheegay in taan lagu ilaawi karo doorasho la galo isagoo la hadlay warbaahintana waxa uu yiri sida tan waxay joogtaa xilligii ugu xasaasanayd iyadoo xaalado dagaal furan yihiin cabashooyin badan ay gobolada ka taageen sida galbeedka oo kale wax waliba uu istaagay dalkii caafimaadkii waxbarashadii noloshii maalgashigii qurba joogii wixii ilaahay dhaqaaleyn haysanay dalka waa taagayeen sixir barar baan cirka amraya hadii doorashadaasi soo laabato oo doorashadaasi hirgeli weydo qarannimadeena waxay istaagaysaa xaalad xasaasiya waxa ay noqonaysaa wadan dictator ah oo aan doorasho hirgelinaynin ayay noqonaynaa la tacaamulka shacabka weyn ogeyn Hargeysa hablaha lagu karbaash jiray wadigaarkay dadka mudaharaadaya wixii ku dhacay xorriyatul qowlki ma yaalo habdhaqankii horumarkii dawladnimo iyo mustaqbalkii dadka loo sameeyay wax qabadkii loo sheegay wasaaradda miisaaniyadahoodii oo dhan iyadoo xukuumadda marayso ay ku darsatay inay meel walba xaraashto oo baloodkii shaqeynayay meeshii ummaddu wada lahayd bal istul taago marka taasina waxa weeye waxaas oo dhan waxa lagu ilaabi karaa xaalad doorasho hadii dalku xaalad doorasho u jeesto qof waliba wuxuu u diyaar garoobayaa in uu dimuqraadiyadda iyo hanka dalka dimuqraadiyadiisa la toosin la howlgeliyo hadii taasi suuroobi weydo Soomaaliland way bariiqanaysaa xaaladaha galbeedka iyo darafyada ka socdaana way sii xoogaysanayaan arinka labaad meesha yaala waxa weeye bulshada Soomaaliland waxay u baahan tahay in xaaladan imika madaxweynuhu leeyahay la taageero macawisleyda duru wuxuu ma noqonaysaa beelaha xuduudaha degan kuwa kalena dagaal ka furmaya macawisleyda galbeedna waa ka furmay marka madaxweynaha waxaan leenahay adigoo inta bariga ka hadal ta galbeedkana ka hadal dalku bariga galbeedba uu nabad qabaa wada hadalka Soomaaliya inta aan la furin kan xaaladaysan maxaabiista laynaga hayo hal la furo hal la joojiyo dagaalkan loo cimaamaday hab qabiil loo galayo aanu ka xunahay dagaalkani 1994 ragan talada haya waa ragii la bariiqday talada dalka maantana inay dalka dagaal sokayo oo kala galiyaan oo hadhow marka ka xuduudaha iyo huwantu dhamaadana gudaha la isla soo noqdo buuq kala la furo iyo hebelima taageeriyo buuqyo kale war waxa looma baahnaa dadkana waa walaalo dalmida baa lagu dhiibay gobolkaasi haduu go'ay oo aynaan maanta gacan inoogu jirin waxa aynu ka yeelaynaa laga tasho tala qaran la furo beelaha Soomaaliland iyo madax dhaqameedka iyo waxgaradka Soomaaliland aan nabadeen laga shaqeeyaan leenahay nabadu naas la nooga leedahay qofna seexan way hadii nabad la waayo dalkuna uu burburayo horumar laan ba ka dhacaysa